waxa raqiis ah iibin weliga sheekadani waa mid xambaarsan xikmad badan waa sheeko ku saabsan nin boqor ah oo maalmaha kamid ka soo baxay qasrigiisa ujeedkiisu waa inuu soo luga baxsado isla markaana uu soo indheeyo xaalka dadka uu madaxda u yahay socodka waxa ku weheliya wasiirkiisa koowaad meelo kala duwan ay soo mareen ugu dambeyntiina waxay arkeen nin oday ah oo beer qurxoon dhex fadhiya boqorkii ayaa weydiiyay ka waran labadii odaygii ayaa ugu jawaabay saddex ayay noqdeen boqorkii ayaa mar kale su'aalay ka warankii xooga badnaa odaygiina waxa uu ugu jawaabay uu tamar dhigay ugu dambeyntii boqorkii ayaa ka warsaday kii fogaa inuu ka warramo odaygiina wuxuu ku jawaabay uu soo gaabtay boqorow su'aalahaas saddexda markii uu uga jawaabay ayuu boqorkii ku yiri ninkii odayga ahaa waxa raqiis ah iibin odaygiina waxa uu ugu jawaabay waan faydanhay waxba hay farin intaas markii ay isdhaafsadeen odaygii xikmadda badnaa boqorka iyo wasiirkiisu waxa ay sii wateen socodkooda boqorkuna waxa uu ku noqday qasrigiisa halka wasiirkii uu iska aaday gurigiisa maskaxda wasiirka waxa ka bixi waayay su'aalaha adag ee boqorka odayga weydiiyay iyo sida uu odaygu u fahmay ugana jawaabay su'aalihii oo dhan hurdo macnale ma seexan habeenkaas wuxuuna go'aansaday marka waagu baryo inuu odayga ka warsado su'aalaha la weydiiyay guriga odayga ayuu ku jarmaaday aroor hore wuxuuna weydiiyay macnaha looga jeedo su'aalaha ay boqorka isdhaafsadeen odaygii waxa uu ka dalbaday 1,000 dirham oo lacag ah si uu u sheego macnaha su'aasha koowaad 1,000 ayuu iska bixiyay wasiirku odayga xikmadda badan ayaa ku jawaabay boqorkii waxa uu weydiiyay labadii lugood ee aan ku socon jiray waxaana uu sheegay in ay maanta 3 noqdeen oo ushan aad u jeedo ayaa ku soo biirtay wasiirkii ayaa markii labaad weydiiyay ninkii odayga ahaa su'aasha labaad macnaha looga jeedo odaygii ayaa dalbaday 2,000 dirham si uu uga jawaabo su'aashan markii uu bixiyay ayuu uga jawaabay wuxuuna yiri odaygii waxaan lahaan jiray dhago xoogan waan meel fog wax kaga maqlo balse maanta way tamar beeleen oo meel dhow ayaan wax ka maqlaa markii looga jawaabay su'aashii labaad ayuu wasiirku jecelaystay inuu maqlo jawaabta su'aasha saddexaad laakiin odaygii xikmadda badnaa ayaa dalbaday 4,000 dirham si uu su'aashan macnaheeda ugu sheego markii uu bixiyay ayuu ugu jawaabay waxaan lahaa indho aan meel fog wax uga arko kuwaasoo hadda soo gaabtay oo wax badan aanan arkayn su'aalihii oo dhan markii uu uga jawaabay ayuu ku codsaday inuu u sheego sababta uu boqorku ugu yidhi wax raqiis ha iibin odayga ayaa ku jawaabay su'aashan weligaa kaaga jawaabi maayo wasiirka ayaa dareemay in su'aashan ay muhiim tahay sidaas darteed ayuu u bandhigay odayga inuu kaga iibsado 100,000 dirham odayga ayaa dalbaday in marka hore lacagta loo keeno markii uu isku hubsaday lacagta ayuu ugu jawaabay boqorku waxa uu ogaa inaad fadul badan tahay waxa uuna garanayay inaad ii imaan doonto oo aad iga warsan doonto sheekadana dhex martay aniga iyo boqorka sidaas darteed waxa uu ii dardaarmay inaan lacag badan kaa siiyo xikmadaha anna waan ka aqbalay oo waxaan idhi nin diran ha u dardaarmin boqorow